saddexda qodob ka ugu horeeya waa ka marka la wada hadlayo Soomaaliya iyo Soomaaliland loo wada hadlayo dastuurka qodobkiisa 112 waxa uu leeyahay qarannimada Soomaaliland hadday la bahoobayso ama ay la midoobayso gobol ama dawlad ama qayb kamid ah oo ay heshiis xariyadeeda ay cid la galayso ma goyn karto dawladda iyo baarlamaanka dadweynaha afti looga qaadaya dadka badankoodu dastuurka mayna akhrin waayo dad badan baa marka la soo qaado koonfur baa la hadlay ilaahada koonfur baa soo leeyahay waxa dhimanaysa madaxweyne iyo baarlamaanka oo ma dhaqaajin kara dadweynaha u taala waxaan ku anagu barnaamijka sharciga saarno yaala oo loo codeeyay labada qodob ee kala midna waa tala wadaaga waa qodobka sagaalaad waxa uu leeyahay inuu qaranka Soomaaliland ku dhaqmo mabda'a xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah xukuumaduna ma bedeli karto baarlamaanka ma bedeli karo waa qodob u yaala codweyne iyo publicu inuu ka codeeyo ee ma geli karaan ka saddexaadna waxa weeye qaranka Soomaaliland sharaacada iyo xukuumadda wararka xeerarka ku dhaqmayso hadday ka hor yimaadaan sharaacada waxba ka jiraan sharaacada islaamka la raacaya saddexda qodob dadweynaha u yaala koonfurtu dastuur loo codeeyay ma laha marka dastuurkoodu waa draft dawladda ma qabto madaxweynahana ma qabto si doonaaba u dhaqmaya ka labaad madaxweynaha koonfurta 400 oo guri lagu soo xareeyay baa doorta cod dadweyne ma wato 400 waa afar kolba la bedelo oo baaba shirki cusub qaar cusub ay yimaada madaxweynaha Soomaaliland wuxuu dhibato public vote ka xukuma dad baa doortay xisbi baa daba taagan ma dhaqaaqi karo dadweynuhu waxa ay ku doorteen way kula xisaabtamayaan midiyo xool u leeyahay dhalinyaro xoolo ku jirta maxaan ku dhahay social media leeyahay uu xakamaysan yahay qarankiisa wuxuu doonay ma dhaaf karaan kulli laakiin isagu wuxuu doonaa u sameyn karaa marka labadaas sida u wada hadlayaan way kala duwan tahay waa nin haysta sharci iyo qoraal iyo wado sida loo xariiqo leeyahay did haka leexarin iyo nin maalinba xaq u soo tooso wuxuu doonaa sameynaya markaas sidee baan u wada heshiinaysaa oo waliba isagii baa leedahay waanu ixtiraafsanahay oo waliba isagii baa taageeraysaan sidee bay labada umadood si aad u garqaadaysaan horta dee soo xakameeya oo waxa maqlo oo sharci hayado idinku qabtay hadaarida dooranay annagu soo wadaasaanu haynaa sharciguna waa kala waana codkii ummadda cidina isku xaman karto waxaan ku heshiinay in la wada hadlo oo ay caalamkuna wada hadashiyo waxa ka horeeyay Turkiga halkay diwaan dhigto jaraadka waa akhriyay waxa ilaahay aanu hadalkii bilowno Turkiga kula bilaamaynaano waayo dhinac baad dhisaysaa nin dhinacii dadka uma garqaadi karo maxaa dooraysaan buu caalamku soo gal waa hadalladaan ururada waaweyn iyo dawladaha waaweyn cid waxa goyn kartaa soo gasho aragtida haddii dooraysaan maato buu naga aqbalay waliba shalay buu soo joogaaba wuxuu yiri Mareykankii iyo maxaan ku raadaa Ingiriiskii iyo European Union iyo IGAD iyo anagu waxaan diyaarinahay bisha April inaanu bilowno qabanqaabadii iyo frameworkii idina soo diyaar garowdaan war Soomaaliland saacada waxay wada diyaar mar hordad iyo shicib iyo dawladba xeerkaas aan ku soconaaba waxaan ku noqonaa mar warkayga halkaas u yaala iyaguna way ku jiraan isna waa balan qaada wada hadal waa la gelayaa garteedna waa go'an tahay fariin baan u dirayaa marka Soomaalida wax afsooran ku hadasho dhan Soomaaliland Soomaali ma nabaha way u ogtahay dadku inay midoobaan wax wada qabsadaan baa wanaagsan waxa sala isweydiyaa sidee wax wada qabsanaya haddii aad sida wax wada qabsanay la isla ogaanin de socon mayso kolka hore waxaanu ka doonaynaa Soomaalida Muqdisho ee talyaanigu weysan jiray inay taariikhda ogolaadaan waxay tahay taariikhda lama xadi karo 1960 waxaanu ahay laba dawladood oo xor ah oo si xornimo ah iyagu u midoobay la isma qabsan la isma cadaadin dawladdii 15aad bay Soomaaliland ahayd ee Afrika xorowday haddii la midoobay maxaa dhacay madaxweynihii iyo taliyaashii iyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo maxkamaddii intaba xamar baatiyanaga qaadan waynu ogolaanay walaalahan baa ahaadeen waanu marxaba Soomaali hore u socoto 30 sano maxaa ka dambeeyay in nin waliba isagoo qaxooti oo carruurta afka ku lalaadsanaya oo carruurta iyo maatada gaadho u waayay xamar nin waliba intuu ka dhaqaaqay ilaahan uu ka imanayay uu soo maray intiina halkaa joogta kuwa waaweyn way soo qaxeen intiina kale aabayaashii hooyadii qaxootiya ayaa ku kiiloomitir laga soo eriyaday yaa sameeyay inaga sameeyay
hantidii ay Somaliland tahay ay awdal lahayd boorba lahayd iyo aqoontay lahayd xamar bay geysay yaa soo qixiyay xamar iyo talaxumadeeda iyo dadkii oo kala firdhisay iyaga eeda lahaa maxaa ka dambeeyay 19 qaxootigii